safarka muddada labada cisha qaatay ee madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan ayaa ahaa safar ka duwan safaradii hore oo ku tagi jiray qaaradda Afrika. safarka madaxweynaha waxa ku weelinayay dhowr wasiir oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. muddada labada cisha ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku sugnaa magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan waxa uu heshiisyo kala duwan oo dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada, waxbarashada, caafimaadka, xanaanada xoolaha iyo isboortiska la soo saxiixday madaxweynaha waddankaasi Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir. heshiisyadaasi oo ay soo saxiixeen qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo halkaasi qayb ka ahaa wafdiga halkaa tegey. intaa dabadeed madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta booqasho ku tagay jaamacadda ugu faca weyn waddanka Suudaan ee la yiraahdo Jaamacadda Afriqiya, taasi oo ay wax ka bartaan ardayda ugu badan ee Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan. madaxweynaha marka uu tagay Jaamacadda Afriqiya ee ugu faca weyn jaamacadaha waddanka Suudaan waxa uu halkaasi kula kulmay dhinacyada waxbarashada ee jaamacaddaasi. madaxweynaha ayaa sidoo kale salaadii Jimcaha waxa uu la dukaday boqolaal dadweynaha reer Suudaan oo ay Soomaalida qayb ka ahayd. intaa dabadeed madaxweynaha Soomaaliya ayaa u soo ambabaxay magaalada tan Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa casar liiqii galabta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Okey, Universal TV, Muqdisho.